الله ليبان أهنا مشرح مدحوينه شخصي آد ومدى غالي وقوة كسو دوو صاحب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وما سنتين مرتي شرفت له أو كسو قيبت شعاوة حفلدان runtii inaan ku sii dheeraado mar rabo barnaamijka walaalkay Xuseen Dr. Xuseen ayaa wixii aan ka hadlayo dhan soo koobay runtii waxaan u hambaleynayaa kaliya dadkii u soo halgamay caawa waxa halkan iskugu nimid dhalinyaradii u soo hagaltay gobonnimadii Soomaaliya SYL 1943gii sidoo kale waxaan rabaa inaan wax yar ka taabto laba kelimadood dastuurka Soomaaliya ee looga hadli doono 2016ka ay ka bilaabanayo 25ka May magaalada Garowe run ahaantii aniga waxaan aaminsanahay sidoo walaalkay sheegana oo ummadda dhan oo dastuurka aaminsan iyo wuxuu yahay waxna ka og anigoo halka inaan ku sii dheeraadan rabin iyo taariifta iyo mustalahaadka oo tafsiirku uu leeyahay ee leedahay dastuur runtii waxa qoran hadda ma aha dastuur la isku raacay runtii waa qabyo qoraal xaqiiqadii taas ayaa aniga runtii waxa igu kalifay ee tahay inaan u soo istaago musharaxnimada madaxweynenimada ee Soomaaliya 2016 markaan arkay dhibaatada lagu haayo ummadda Soomaaliyeed xataa kuwa ku nool Garowe hadda shirka lagu qabanayo iyaga nafsadooda dhib ayay ku nool yihiin canshuurta laga qaado gobolka Puntland waxba kama soo gaarto waxa qaata 5 qofood kaliya ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto way dulunsan tahay wax lagu heshiiyana male 2004 federal xataa lagu ma heshiin in cid loo qaado ayaa lagu heshiiyay marka taa ogaada wax heshiis Soomaali dhaxmar ilaa hadda ma jirto waa wax hotor ittifaaqiye oo kaliya leesla afgartay waa is afgarasho leesla afgartay in lagu soo jaro dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya ka socday 1991kii ilaa hadartan wali meel ka mid ah ka socdo si dagaalkaas loo soo afjara kaliya ayuu heshiiska ahaa laakiin se wax kale oo lagu heshiiyay maysan jirin marka taas waa inaan wada ogaano midda kale waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Banaadir in xaqooda qofna aysan u daba fariisanaynin ayna qofna ay wax weydiisanaynin baarlamaanka Soomaaliyeedna uu yahay baarlamaan hadartaan runtii asaga nafsidiisa lagu tilmaami kara mid ku meel gaar ah maadaama wax go'aan uusan qaadi karin wixii loo soo doortanay ilaa hadartaan uu waxba ka qabanin marka taasna runtii in la ogaado ayaa u baahanahay marka hadartaan kadib iyo waxaan u baahanahay in wax la qabto marka insha Allah ta'ala uu istaaga xaqiina insha Allah taageera dadka waxa idin qabanayna aad iyo aad u maasantiin